marka aad iskuuladii geyso tuulooyinka ugu dambeeya dad aanan reer miyi iska ahoo xoolahooga iskaga nool oo kolkaad iskuulkii geyso iskuulkii markaad geyso meelay cuntada ka cunaan inaad dhigto caruurtii la reerka hadduu guuro uu la guuri ilmihiina dee iskuul ma helayo marka kolkaa iskuulkii ceelkii meeshuu wax ka cunayay inaa meel quraha laga dhigo kolka reeruhu ma dheeraanayaan kolka ay ilmahoogii ku og yihiin inuu meeluu seexda haysto waxuu cuno haysto iskuulna haysto ma garan kolka sidaa aad u ballaadhiso wuxuu ku dhammaanayaa iskuulkii shaqadii dowladdu kelideed inay samayso ma karto waa inay abuurtaa jawigii waa inay abuurtaa maalgashigii waa inay abuurtaa maxaa la dhaha xeerarkii waa inay abuurtaa nabadgelyadii waa inay abuurtaa yani jawigii keenayay in dadku ay ku soo hirtaan oo waxbaad ka qabsan kartaa ay is yidhaahdaan wadanka xaggii qawaaniinta iyo xaggii xeerka iyo xaggii yani damaanadii la siinayey kolkaa dee waxaan isnidhi wadan aan macdan lahayn oon betrol lahayn oon yani beere lahayn sidee dee ummadaasi dhalinta intaa leeg shaqo loogu heli karaa horta waxaan kuu sheegay sharciga kolkaad dajiso dadkii inaad tiraahdo warkaalay oo yani waxgashada wadankii dadkii u dhashayna aad tiraahdo abuura caruurtiina un u abuura xabad ama laba shaqo hadaad kartaan shaqana yaryaraysi ma leh baa la yidhaahdaa waa inuu qof waliba naftiisa u shaqo tago dowladdiisa u shaqeeyo dalkiisana u shaqeeyo kolka shaqa abuur fara badan waan samaynay free zone weyn oo 4,800 oo hektar gacanta lagu hayaa task force aan gelinay 140 hektar ee ugu horeeyay inaan July aan furno iyaan noo qorshaysan marsooyinka yani xaggan dameer joog meel la yidhaahdo inaan aan u wareegno haddii tole baska xagga way naga buuxsantay xaggan kolkaan u wareegayna waxaan ugu wareegaynaa ee ugu weyn waxa weeyaan petroleum industry in refineryal iyo steel industry yani xadiidka warshadahooga inaan halkan aan ka dhigno ayaan damacsannahay af ingiriiskaan cadibay oo anagu waxaan nahay wadan xidhmay oo faransiis ku xidhmay ayaan noqonay oo dunidii hareeraha iyaguna wada ingiriis bay noqotay reer Oxford wanaga dalbanay halkan keenay 600 oo dhalinyaro ah imika inaa rotation loo sameeyo TOEFL-ka ay heli karaan oo wixii dee fee laga bixinayo oo dhan aan ka bixinayna way jiraan